السلام عليكم. ويونت 1 ayaan ku jirnaa cutubkii koobaad ee buugga ku hadalka luqadda Ingiriisiga. Lesson 10 waa casharkii 10aad. Asking about your family, sida loo weydiiyo ama looga waraysto family-ga sida la isku weydiiyo ayaan baan doonaa insha Allah. Do you live with your parents? Ma waxaad la nooshahay waalidiinta? Or mise do you live alone? waxaad la nooshahay keligaa baad nooshahay mise waxaad la nooshahay waalidiinta? I live with my parents. waxaan la noolahay waalidiintay. Is your father alive or dead? Aabaha muu dhintay mise wuu nool yahay? Is your father alive? Aabaha muu nool yahay or dead mise wuu dhintay? He is dead. wuu dhintay. But my mother, laakiin hooyadayba is alive, nool. Sorry, waan ka xumahay to hear about that inaan taa maqlo. Sorry, waan ka xumahay to hear about that inaan taa maqlo. So saa daraadeed, you are an orphan. waxaad tahay agoon now hadda. Yes, ha, that's right, waa sax midaasi. Do you have brothers and sisters? ma leedahay wax walaalo ah oo wiilal ah ama gabdha aad walaala tihiin? Yes, ha, I have got 3 sisters. waxaan leeyahay 3 hablood oo walaal ah, but no brother, laakiin wiil walaal lama yihiin. How old are they? waa mise jiro? The oldest one, midka ugu weyn is 20, waa 20 jir. The second oldest, midda xigtaana is waxa weeye 18, 18. And the youngest, midda ugu yarna is 16, waa 16. And what do they do? And what do they do? maxay qabtaan? And what do they do? maxay qabtaan? They are all students. dhammaantood waa arday. What does your mother do? hooyada maxay qabataa? She is a housewife. waa guri joog. She is a housewife. waa guri joog. casharkeeni maanta intaas uu ku ekaan doona waa inoo casharka xiga.